السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهرين وأنا على البار تنال كذا جدا ونسان وعلى البار فشيان. قلبت يوم حرة أنا الحوار للنيرة الصومالية بريكليو أما هو أقل عليه أنت أنك دامه. برنامج كي أنت أن أوجد كلين كهر فضلا واحد قاعد صنع يوتيوب كي أنا لايك سعدان سبسكرايب سعدان شهر بعدان. waxaan rabaa inaan galabtay la hadlo dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin anigoo ah halbaar dhalinyaro dunida maanta aan joogno markii la yiraahdo Soomaaliya meesha ugu dambeysay ayaan ka joognaa balse dadkii maanta horumarin lahaa oo waxa weeye maanta Soomaaliya ka dhigi lahaa dunida ugu horeysa dunida koowaad ee horumarka waa naga shakhsi ahaanteeda lambar 1 aniga aan iska bilaabo dhalinyaradii maanta magaalada Soomaaliya ka dhigi lahaa wada muraayad ka dhigi lahaa waa anagii hadii aan waxa weeye laakiin madaxa uga taaganahay madaxa aan cag uga hayno run ahaantii waxa weeye masuul kaleeso ayaa mahad iskale alxamdulillah rabbil caalamiin Soomaaliya maanta waxa ay maraysaa heer caalami Soomaaliya maanta waxa ay maraysaa heerkii maanta ugu fiicnayd horta 2013 marka aan fiirino meesha aan marinay iyo maanta labada sanadka cusub ee 2022 run ahaantii farqi aad u weyn baa u dhaxeeya waxa weeye dhalinyaro waxaan rabnaa inaan waxa weeye indhaha kala furno wiilka yarka oo maanta anagana la eg oo waxa weeye China jooga ama Mareykan jooga waxa uu ku fakaraa wadankiisa suu waxa uu ku horumarin lahaa ama wadankiisa wuxuu qaban lahaa ayaa uu ka hadlaa ayaa uu ku fakaraa balse anagu waxa aan ku fakarnaa hooyo Soomaaliyeed sida aan waxa weeye uga oohin lahayn ama hooyo Soomaaliyeed uga dhaawic lahayn ama gabar walaashay aan u bahdil lahayn baan dunida u noolnaa u joognaa sidoo kale waxa weeye waxyaalo badan oo waxa weeye dunida hadda markii aad fiirisay anagu waxaan nahay daciif qalbiga iyagu ma gubanayo miyaa run ahaantii habeen dhaweed waxa ugu dhacday qisadaas oo waxa weeye ilaa ay hadda markii aan anigu waxa weeye run ahaantii iga ilmaysiisa markaas qisadaas waxay ahayd aniga oo meel rag dhalinyaro isla socono meel luuqa maranay marka xaafad baan u soconay xaafadda ma aqoon waxa dhacday hooyo Soomaaliyeed baa luuqsaas kale u mareysay marka waxa weeye luuqii baan ta dhaafnay baa luuqsa weyn naxda wetri waa maamo weyn oo waxa weeye suuqa ka timid wetri ruuxa maxay saan hooyo waa maxay saxir tuugaynay qabay hooyadaas wallahi billahi sa uga naxay waxaan sir bal dadka wax furta bal marka ay wax ka furanayaan bal maxay dhihirayd wallahi qisadii ugu naxdinta badneed oo ilaa hadda qalbigay ka gubanay qisadaas ay ahayd sidoo kale waxa weeye dhalinyaro dunida aan la tartamo si dunida ula tartami karnaa si isku horumarin karnaa wadankayaga si wax ugu qaban karnaa wadankayaga waxyaalaha maanta aan ku dhaqmano inaan xaggaas ka dhigno ugu horeyn aan tilaabo qaadno wadankayaga sidii aan waxa weeye uga dhigi lahayn dunida ugu horeysa Soomaaliya taafurad hadii aan noqono waxa weeye heer baan gaarinaa balse kaayaga waxa weeye dhalinyarada oo taariiba maanta oo Liibiya gala kii kale oo joogay ku soo wacaya wuxuu leeyahay waa raaxo niyo xagga waa qurux baa taal lacag baa taal waxa baa yaal balse markii uu tago waxyaalaha wuxuu la kulmayaa oo sufleen marka waxa weeye taas waxaan isdhihi karnaa qalbiga ayaa waxaan ka nahay saqiir marka aan isku dayno waxa weeye maanta meesha aan taaganahay inaan waxa weeye ka gudubno caqabad walba iyo waxa weeye tilaabo walba aan qaadano waxa uga gudbi karnaa si yar oo fudud baan uga gudbi karnaa ogana waxa weeye tashan karnaa kaliya aan sameeyno isku xirnaansho sidoo kale aan sameeyno waxa weeye iskaashi inta hadii aan sameeyno anagu oo dhalinyarada aniga oo ku hadlaya afka dhalinyarada gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo insha Allah taala waxaan rabaa kaalin aad u weyn inaan ka qaato dhalinyarada sidoo kale waxaan rabaa inaan ka qaato xubin muhiim ah isku duwaha dhalinyarada baraarujinta dhalinyarada Soomaaliyeed kliibkaygan qof walba oo arkaasi share gareeyo hasi le gareeyo hasina waxa weeye marar badan waxa weeye waad aragteen sidoo kale waxaan jeclaa marar badan inaad waxa weeye soo istaagi doono waxa weeye dhalinyarada Soomaaliyeed inaan waxa weeye fadhiga aan ka kacno hurdada aan ka kacno waxa weeye kaliya aan isku dayno waxa weeye sidii aan maanta kula tartami lahayn wadamada horumaray wadan koowaad hadii aan noqon karo wadanka labaad ama wadanka saddexaad run ahaantii maanta waxa weeye meel fiican baan joognaa laakiin maanta meesha aan joogno meel ka si fiican ayaan rajaynaynaa inaan tagno aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.